hubkan biology-gu waxa uu ka samaysan yahay noolayaal yaryar oo ilma qabatay ah sida fayraska, bakteeriyada iyo fangayga amaba sunaha kale ee laabka lagu sameeyo loona sii daayo si ay xanuuna iyo dhimashaba ugu geystaan dadka, xoolaha iyo dhirtaba. waxaana loo adeegsaday dagaal, waana sababta loogu bixiyay magacan hubkan. waana adeegsiga sun biology ah ama waxyeelo kale oo isla hubka biology ah la xidhiidha, sida bakteeriyada amaba cayayaanno xanuuna lagu beero iyadoo si badheedh ah loogu talagalay inay laayaan amaba ay waxyeello u geystaan dadka, dhirta iyo xoolahaba, iyadoo sida dagaalka oo kale loo adeegsanayo. waa ka mamnuuc in weerar lagu qaado dagaalkan biology-ga siday dhigayaan qawaaniinta caalamiga. sannadii 1972 waxay dowlado badan oo adduunka ka tirsan isku waafaqeen in laga mamnuuco adduunka horumarinta, samaynta, kaydinta iyo adeegsiga hubkan biology-ga. waxayna arrintaasi ka dhigtay u adeegsiga hubkan iska hor imaad mid mamnuuc, waxaana loo aqoonsadaa ciddii u adeegsata iska hor imaad hubkan inay gashay dembi dagaal. si taa la mida muu mamnuuceen heshiiskaasi baadhitaanada ay dowladuhu ku samaynayaan si ay iskugu difaacaan iyo baadhitaanada nabdoon midna. arrintaa darteed sunta amaba noolayaashan ilmaqabatinka ah ee hubkan waxa lagu dhex beeraa oo lagu naaxiyaa unugyada amaba noolayaasha kale. waxaana markii ugu horraysay adeegsaday saynisyahan ku takhasusay samaynta hubka kiimikooyinka laguna magacaabi jiray Ludwig Berger. waxaana laga yaabaa inay noqoto sumayntani quruubo amaba jajabyo yaryar ama borotiinno awood u leh inay sababaan xanuuno markuu qofku taabto amaba ay jidhka gudihiisa galaan. marka la eegona siyaabaha loo sameeyo xanuunada cilmigan biology-ga, noole kasta oo nooli waxa uu awoodaa inuu sababo xanuun. fayraskuna waa noole ilmaqabatina, wuxuuna ku dhex tarmaa noolayaasha iyo walxaha kale ee yaryar ee ilmaqabatinka ah sida bakteeriyada. waxaa la caddeeyey in wax ka badan 9,000 oo fayrus ay ku dul nool yihiin deegaanka, iyagoo sii tarmaaya isuna beddelaya malaayiin kale. fayrasku wuxuu ku nool yahay deegaan kasta oo ka tirsan kubaddan wareegsan ee aynu ku noolnahay, waana nooca loogu adeegsiga badan yahay marka la adeegsanayo hubkan biology-ga. isla adeegsiga tooska ee xanuunada faafa ee loo adeegsanayo ciidamada cadowgaaga waxay ahayd wax hore loo yaqaanay. si taa la mida xanuunadu waxa ay sabab u noqdaan dhimashada dad ka badan dadkii ay laayeen hubkii adduunka lagu adeegsaday oo dhan, iyadoo weliba aanu aadama adeegsan. waxaa jirtay marar badan oo la adeegsaday hubkan biology-ga. markii ugu horraysay ee la adeegsado hubkan biology-ga waxay ahayd sannadii 1347 markii ay ciidamadii Mongolisku ay dusha kaga tuureen mid xanuunka daacuunka u dhintay qalcad ku taallay badda madow. markay qabsan kari waayeen, waxayna taariikhyahanada qaar aaminsan yihiin in qaar ka mid ah doomihii ku sugnaa magaalada ay dib ugu soo noqdeen Talyaaniga. waxaana halkaa ka dilaacay daacuunkii madoobaa oo laayay wax ka badan 15 milyan oo qof. waxaa la ogaaday in hubkan loo adeegsaday dagaalkii koowaad ee adduunka markii uu Jarmalku ka shaqeeyay mashruucii qarsoodiga ahaa ee la doonayay in xanuuna lagu qaadsiiyo fardihii ciidamada isbahaysiga. sirdoonka Jarmalkuna waxa uu fardaha ku mudeen xanuunka. si taa la mida waxay adeegsatay Jabaan oo u adeegsatay jabhadihii wax iska caabinta ee Shiinaha sannadadii 1945 iyo 1937. umanay adeegsan Shiinayska oo kaliya ee waxay ku laysay dad ka badan 3,000 oo qof iyadoo u adeegsanaysay tijaabo ahaan. sidoo kale Spain waxay adeegsatay hubkan markii ciidamadeeda loo geystay jab aad u weyn sannadii 1921 markii ay dileen xogagii wax iska caabinta ee Morocco 14,000 oo askar oo Isbaaniyaan ah. waxayna caddeeyeen taariikhyahanadu inay ciidamada Spain adeegsadeen sunta kiimikada iyo neefo kaloo sumaysa dadkii ku noolaa meelaha baadiyaha si aan kala sooc lahayn. sidoo kale Ciraaqna waxay caddaysay inay samaysay 100 qumbulood oo ah botulinum, 50 qumbulood oo ah xanuunka kudka,
iyo 7 qumbuladood oo ah aflaatoxin. sidoo kale waxay awood u yeelatay inay ku rakibtaan gantaalada 56 madax. sidoo kale Suuriyana waxay samaysatay qaar ka mid ah hubka sida daacuunka, kudka iyo xanuunno kale oo geela ku dhaca. waxayna u adeegsatay kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeeda Bashaar al-Asad.